السلام عليكم. فضلا سبسكرايب صار channel كان هديات كويس بتاعي كل واحد كفايد انت حياة فرا بدن كان بلال كان فرو عاد بد ما تصنتهي dhalinyaradu laba cilo ay leedo labadaas aan idin ka digaya ku gabagabeynaya laba cilo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan u yaqaana waa suuq galka waa inuu ninku tasayub xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 13 markaad isku qasabto maalin afraadana sigaar yaab noqonaysa khamra maalin la yiraahdo tijaabiya maalin toddobaadana khamriya yaab soo baxaysa suuqa habeen ama laba la tijaabiya bariga dambena routine walada sabtida hadda wadada sii taagan ma noqonaysa idan kaas waa inxiraaf waa tasayub waa in tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxa adag inaad soo noqoto bale waxa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baabaado ka inta badan dadku iska waaniya mid dhanka kale baa isna jira dhalinyaradu markay cibaadada qabsadaan ay qumanaanta qabsadaan waxa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca maxaan uga jeednaa nolosha miisaankeeda ka luma dabeetana waxbuu tira badiya walow taacana ha noqotee dabeetana wax kale ku xadgudbaya مثلا عبد الله بن عمرو بن عاص به وغوري isagoo nin dhalinyaro ah markii loo guuriyay ninkana wuxuu ahaa nin quraan akhris badan oo soom badan habeenkiina uu taagayo quraan uu akhriyaa maalintiina salaad uu tukaa habeenkiina quraan iyo salaad buu wadaa maalintiina waa sooman yahay inantii loo meheriyayna kanafkeeda ma taaban ilaa waa nin maalina sooman habeenna taagane aabaheed baa soo maro wuxuu yidhi war bal warrama inantii buu yidhi bal warran nicma rajul huwa rag isagaa u fiican bay tidhi mase arag macnaha bay u tilmaamtay u guud marta ragna waa u fiican iyo xumo ku sheegi maayo oo ninkaas soomane salaad ayee cibaado u taagan reerna ma oga baa la leeyahay dabeetana nabigu uu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxa la yidhi sanaad ku wada sax maaha quraanka intaad ku akhridaa dee waa habeen kasta oo kaga tuuraabulay waa dhameeya kada baa la yidhi bishii mar dhamee quraanka markaasuu yidhi maya waan ku xoog badnay iida ilaahay rasuulkiisa xoogayga ka faa'iideystay hadda dhowr iyo tobanka casho dhamee baa la yidhi ma ilaahay rasuulkiisa iida waa xoog badnay ka faa'iideystay toddobaadkii mar dhamee ma waa xoog badnay ka faa'iideysto war mar saddexdii casho mar dhamee baa la yidhi ma waan xoog badnay war halka laba dhaafo buu ku yidhi saddex casho laba dhaafay ka joog waxa lagu yidhi war maanan soomaa waanan afuraa dan waxa loo tilmaamay right way-ga isagoo soon iyo salaad iyo quraan akhris ku jira waxa loo sheegaya xuquuq kale inay luntay ma ha soon iyo salaad inay xuquuqda kale lumiso Salman al-Farisi ayaa ninkii la walaaleeyay Abu Darda Abu Ayyub al-Ansari si Abu Darda ayuu la seexday habeen buu yimi dabeetana waxa arkay xaaskiisiyo Mariya iska kuwii lagu shaqayn jiray iska sidata dee gabadh la qabo baan u ekayn maxaa dhacay buu yidhi waxay tiri walaalka adduunyadan kama leh aakhiru ku mashquulsan iyo meel kale habeenkii wala seexda in yarba markii la jiifuu soo booday saxaabigii dabeetana salaad buu sii xidho war saxaabu ku yidhi salaad leeyna iska seexo waa ka celiyay abaan markii la joogo soo booday war saxaabu ku yidhi waa seexiyey goor dambe ayuu yidhi kaacimaka waa la tukada dabeetana wuxuu ku yidhi war dhagayso naftaaduna xaq bay kugu leedahay cidi kuma odhan habeen oo dhan soo jeeday habeenkii nafta u raaxee inna ilaahay caabud naftu xaq bay kugu leedahay ilaahayna xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin buu tilmaamay waxaan waa xuquuq mid walba laga raba inaad gudbiso subaxii baa loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam Salman run buu sheegay buu leeyahay sidaa uu Salman sheegaa saxa waxaan uga dan leeyahay
dhalinyarada xagga cibaadada timaadaana tatarrufkan kale ku dhacaan inuu yidhaahdo anigu tacliinta ma iska daynaya waxba baran maayo meel lagu xoogsi tegi maayo naaga qaawama meel heer marmara maxaad qaban dabeetana sooshyaalkaad barayaysaa dabeetana masaajidkaad dhex fadhiyaysaa hada laysa bidiin wax saxa maaha cibaadayso sax salaadaada ilaasho soonkaaga ilaasho been ha sheegin run sheeg cibaadayso laakiin noloshii activity-geedana waa cibaado kale ka qayb qaado waalidkaa u samafal mujtamacaaga u samafal dadka wax u qabo idan waxaan leenahay kusoo koobaya waqtigayga waa iska dhammaad baan filayaaye shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi baa ammaanan laakiin labada tatarruf midna diinta kuma ammaana inaad noloshoo dhan one sided ka dhigto oo noloshoo dhan aad si qura u aragto nolosha waa laynagu itixaamo ibtilaaga dhammaantii inaad gashaabaa loogu talagalay anugu waxaan ku jirayaa uun halka kani sax maaha saa awgeed waxaan leenahay dadka ammaanani waa dhallinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaantaa leh cibaadadoodaasi dadka kale toddobada mawaaqif baa loo sugaya iyaga mowqif gaara looma sugana cibaadadooda mutlaq baa laga dhigay waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay bay leenahay inay noloshoo dhan ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xun yihiin markaa inaad tarafkaa cibaadada uga dhacdo tatarruf u baxdid iyo inaad tarafkaa kale uga dhacdo tatarrufka waxaa sababaana qofka dhallinyarado isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiinin way hagi lahaayeen waxa saxa ah sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil